وناقاق سوريا داها سيفة نقول مايو ثم دادي في عيني غدير سحر كودي مايو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واني سلانة دمان أصحابت ميرو البقدون كأجوكتين سو دواذا وولاشين أدنى وقرب كيدا تاغن ولال كيدا ورسي صحافية ري اي والله اي ما شاء الله ما انتي مخال كلام مخال كينا ما انتي بحوك سابسين وجدين هاي مكتورة مساعدة كتوريس كتور وطوط أنا وحان صوّد دايق دبخاد ويس وحاوى هرقيس روك أكتايا هاي منوين إسياسيسا دقيسيا إيه خو علاسك سيتو هاف لندني هرقيسا هاي هرقيسا يقدو ده فشل عادي وكو علا فيريا هاف لندني هرقيسا حواد لو هيرايو دقيسة ديرتو داستو هوا لو هيرايو مليا قرية سمو هبوني هرقيسا هوا دي علمي ايو هرقيسا اللي كجراي marka waa kay guys aan kastaana ay ugu tala galay waani dhameystir doona hadhow si fiican iyo dhameystiran faanteen hadda waxa waaye saxafa masjoog asaa waaweynka mid oo soo wado hay waayahay karog oo hadana laba saar wiilkii yaraa dictor saxaaf adna walaalkeed ka yar oo idin leh maanta waxay ka shidan tahay jamhuuriyadda barakeysan ee Somaliland laga soo bilaabo Hargeysa saan u tag gobolka Maroodi Jeex ka sii bax Gibile aad ilaa iyo Wajaal dhulkaas soo garaac Allahu akbar inta ka soo baxo waxa timaada Boorame ilaa iyo yaa awdal koor ka soo bax xuduudda Djibouti aad saan u soo laabo maanta xaaladdu ma sahlana waxa waaye waxa la yiri markaad dirirtid inaad maaragta ka hor imaado dad aqoon leh waxa la rabaa aqoontaada inaad ku soo tashatid marka hadii hooyigii fanka aad ka hor imaanaysana hooyigii fanaanka waka saasa ka raba waa xigmadeedii iyo fankeedii iyo erayadeedii wacan inaad haysatid waaye waxaan leenahay oo aan u soconaa hawl adag oo maanta loo gogol xaray insha Allah xafladda Somaliland 18 May jamhuuriyadda barakeysan laakiin waxba ka horeeyay xafladda waa laga horeeyaa processkii koowaad ee xafladda ayaad maanta daawan doontaan hadii ay la weyna laga helo talo muxuu noqon doonaa processkan nakeena hadda ay sineenay
خلاص مجدين سوبر حرصة من به وعيدمada gaarka ah oo aan ku soo dhaweynayno maxamed maame aniga iyo fardaan adno ciidamadan waa ciidamo loogu talagalay inay sugaan amniga maxamed maame baabuuradan iyo waxaan oo dhan ayaga iska leh waxaan dhan ayaga wataan okay waa kana mujadin ciidamadan dhan ayaga loogu talagalay okay waa u gooy aniga dalakh waayahay ciidamada maxamed maame هاي ودنبين waxaa imaanay elboorka waxaa tahay gaari dumar kartida iyo garashadana soo ugu dambeyntii waa kana elboorka imaanay waxaa soo soconaba waa soo roori maalada maanta waxaa soo dhaweynaynaa sida caadiga ah fanaankeena maxamed maame marka waa kahe maanka in the building waatana marka waa kaase waxaan joognaa inaan soo dhaweeyno fanaankeena maxamed maame oo joognaa inaan soo dhaweeyno insha Allah waxaan ku leenahay walaal soo dhawo marti ma aha waa sanadkiisa labaad oo imaanay marka labaad waa imiya sanadkii maxamed cabdikariin isla joogeen okay sanadkana askaligiisa imaaday ما شاء الله soo dhawo waa markii labaad ما شاء الله waayahay intan waxaa taagan maandeeq maxaa leedahay wallaahi bilaahi waxaan leeyahay aniga horta waxaa waaye aadna meeshay u socoto maba ka heraba waa mataankeeda ma kala herno insha Allah marka waxaa waaye qof culus ay maanta soo dhaweynona aadna laakiin istaal ay ku garaacay wallaahi bilaahi talaay waa hore wax ma jira ku dhahay hadii dhac cunug 15 jira noqotay قصان فانده وحان قصو ان عواني لا هل مالي لعبه وحان ان عبو مرتا معبي بس لك شخ بدن سرواه ما مسكعده هذا وسقيس الناس wax kalma marka waa ka guys ugu dambeyn waxa waay meeshaan hadda soo bixi doona fanaanka marka insha Allah iyo adduunyada geeska gees laato umir arag firi ninkan daayadu isticmaalaa ninkan hees cusub oo soo wadaa shaati gacmo gaabka waa macaatooyin jaakadeedii yaa soo ilaawo maanta hees cusub waraysi hees cusub heestaada waa soo qarxisay heestii soo qarxisay aan eray ma sheegin okay heest waaliya soo socoto ani fanaan kale ma sheegay laakiin fanaan su'aal kale ku weydiinay outfit kan coupleska maxaa kale unta tee horta niyo 14 February maalinta jaceylka ogaa outfit ka maanta wada gaduud ما شاء الله هيا soo socdo haye waayahay waxaa soo dagay fanaankeena ما شاء الله ما شاء الله ودنبه soo dagay fanaanka maxamed maame ورا رجيس عام في عمرها يا
reer xamar waxay ku xun yihiin hadal kasta mid uu qoyo na qosol walaalo ii waran seetay malafaya cidana malaga warhaya bila bila malafaya cidana malaga warhaya bila bila geesi sidiisa madala cidda asaa u taagane taagan geesi sidiisa madala cid asaa u taagane taag alcasar see waxyeeloosa yaa kaloo kawaaloosa fashiloosa dadka tusoosa anima booga see waxyeeloosa alcasar see waxyeeloosa yaa kaloo kawaaloosa fashiloosa dadka tusoosa anima booga see waxyeeloosa dadkan ana waxay arkaan bodraan dadki waxay ugu yeeraan xarfaan waxa u diray degnaantaan ina tusiyo muusig macaantiis meel ilaahay amarkiis mugdigii ma socda mugdiga ilaahay amarkiis markii video la duuban waxa la war mugdiis meesha wax noo dadna mugdiga ma jirin miya maanta waa kan waa la socdaale afar loo sac fado imaanay mugdiga la noo xaadire malafaya cidana malaga warhaya bila bila malafaya cidana malaga warhaya bila bila geesi sidiisa madala cidda asaa u taagane taagan geesi sidiisa madala cid asaa u taagane taag alcasar see waxyeeloosa yaa kaloo kawaaloosa fashiloosa dadka tusoosa anima booga see waxyeeloosa انت برضه دوبي صوت انت خد دوبي صوت انت اللي قولي صوت تعالى صوفي بس بس انا كده عادي فوق من هنا احنا رقم كده جانا صوت ده حلوه حلوه ده رزبح هبلها ما هبلها سوري عادي وحرسيان حاسس توري حاجه صدق وحاجه السلام عليكم السلام عليكم maanta halka waxaan u joognaa soo dhaweynta fanaankeena weyn ilaahay baa weyne maxamed cumar saalax maxamed maame oo maleeshiya nagal qayb geli doona xafadda dabaaldega 16 May iyo sidoo kalena ciidda saaran waxaan ugu mahadnaqaynaa dhammaan inta qof ee ka soo qayb gashay soo dhaweynta fanaankeena waxaan leenahay aad oo maasantiin kulli fanaanku daalan yahay waqti badan ka cunmayno halka waxaan ugu talgalay inaanu shaacino aan tusno insha Allah in xafladeenu ay tahay habeenka ciidda 7 Juun kulli waxaan soo koobiyaa hadalka kulli aad baa loo dhiidayay amba daraga istiraha la soo qaato amba tushgaada loo soo baso assalaamu calaykum waayahay inta aad halkan ka arkaysaan waxaa ka badan inta kamerada gadaashiis joogto oo ka yara xishoonayso laakiin intaan anigu hadalkay u galin waxaan rabaa inaan tijaabiyo dadka halkan jooga maxamed maama ma yaqaaniin mise ma yaqaaniin ma bilaaba tijaabadeeda meeshaan kugu sugaya maad iman waxaan kugu mahadso maad falin milgeedii naftayda maad marin
هاي وكا توحي عدين تهي celebrity legend فنان كينا وين محمد مامي إنه مقالة كوالالمبور ودن كماليشيا يمد ماما يمد ماليشيا مرتئات وفربضان وماموس بدن مدنيال إيه مروي سوق جرانا هي وين مرحبين ما حد من صعب كلامه دفتو ولكن وحن لنا هاي markii koowaad maanu halkaan imaanayo dhowr jeer hore yimid waa mininka waa dhaha hadii aan sambuus gang codkooda ku hadlo waya waa maasantiin gabdhaha soo xidhay waayahay bismillaahir rahmaanir rahiim waxaanu dhamaanteen maanta halkan isugu nimiday inaynu soo dhaweyno fanaankeena weyn maxamed maame oo inagala soo qayb galaya xafladda 18 May oo dhici doonto 7 bisha maalinka ciida insha Allah taala marka dadweynaha ku dhaqan Kuala-Lumpur iyo hareeraheeda waxaan ogeysiin insha Allah habeenka ciida inay nagala soo qayb galaan de fanaankeena weydii joogaa waa la dishiday ka soo qayb galay insha Allah taala aad baad salaaminaa ما شاء الله waxaad ugu faraxsanahay ما شاء الله walaalkay waxaan leeyahay soo dhawow mar labaad iyo mar saddexaad kale mininka waan fahamtay baasha oo sambuus gangan ana ka socdo marka okay maanka maalle okay aniguna waxaan leeyahay sidoo kale xidigayaga حد قرر سومالان walaalkay maxamed maame soo dhawow inaan ku aragno aragtidaad farxad inoo tahay maanta waxaan xafideen ugu soo baxan inta soo taagnayn soo dhaweynta walaalkeena magaaladana waa magaaladaadii anaka ku joogno wad ku laandheereyn doontaa insha Allah marka waxaan ku leeyahay walaalkay soo dhawow wax badan oo isku kan dhimeeyeen waa kaas doobin doona sama waayahay اوكي سندس المر قبلك سندس ايام in the building okay maxamed maam soo dhawow kuleeyahay kuni coacher magaaladaadii waa si saami ku sheegtay soo dhawow kuleeyahay ku faraxsanahay aragtidaada soo xakleeyahay fanaaniinta ereyaday soo dhawow kuleeyahay fanaaniinta soo socda xataa ereyin doonta iga badan بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتين waxaan soo dhaweynaynaa fanaankeenna weyn maxamed cumar saalax waan ku soo dhaweynaa dalka caasimadda Kuala-Lumpur ee dalka Malaysia waxaan xasuunayaa kuleeda waa dhameystirey intuu jiray baan dhasho calankan daayaha ku furay Hargeysa of London waka fanaanka waxaan ka dalbanayaa intuu hadal aadinba in codkiisa bila music uu noogu bilaawo hees Allah la heestu jecel yahay sida maanta ugu haa saxaafo hortoodiga khajisiisan koo dhaha aad hortood ugu mahadsantiin sida quruxda badan aad ii soo dhaweyseen niyo aanu skeerin khajil baan aanu mikrofoonku mar isku fiican ma garanaysaa laakiin inta kamarad ka maqanahay waan buuq badanahay kamarada ma soo istaagay ma hadlay aqaan inaan mikrofoon qabsado mooyaane igu soo qarxada doonto wanaagaagi suuriyada sifad noqon maayo sumadaadi fiicnay qadir saxar ku daymayo calool xuma siyaada qalbiga kugu sidimayo That's my boy Maxamed Maame saaxiibayaal baa u maasantiin waxaan xoog umarka koobaad iyo mar saddexaad iyo mar labaad buu mahadlaqayaa hablaha rag iyagu mar walba way dambeeyeen ladies first hablaha aad baa u maasantiin hoono sida karaamaysan ee danihiina aad igu soo baajiseen waa idii qabaa gobyana sabaatiin raggan u soo noqonaya idinku de mar walba way wada joognaayeen oo inoo yar magaalada de iyo Twin Towers hoosteeda waayahay waxa intaan mikrofoonka wareejin ama aan soo xirin ama gudoomiyaha aan ku wareejin waxaan shaacinaynaa 18 May
jamhuuriyadda barakeysan ee Somaliland maalinkeeda maalinkii ciida isla habeenka adoo subaxdii ciiday habeenkiina lagu ciidsiinaa maxamed maama joogo lagu kala kicinaa insha Allah ham maqnaanina soo wada dhawaada barnaamij malashida هداي إري خشلي سويري فنانك أدني كوحدة ما فاهمين وحلاقة وضع حشوت ما فهمتي ها ويا قدومي أنكو سوق بقويني يا كل وانا بلعبي وانا سوق ختمي كل هذا كل واحد كم بدينا يو وينو هبين كي عيدا يصير هروب شيء لما نشالي دا كل ماليزيا يدافع هذا بقى ونسود ويننا سود هذا وينو هبين كأي محل مامي السلام عليكم واكنا واسو ودا بحني صحافنا واكنا كيان كومو ذي ما نقن هاي والله وهي سوسي